dameerkii oo calacalahay wuxuu yidhi قال بيك قال بيك waa run wuxuu yidhi haddii laisoo dayn waayo karantiinka lagu hayo waxaan adeegsan doonaa dad badan oo coronavirus qabaan baa magaalada dhinaca kasoo gelin doonaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوداش قيمها يقدرنتا نغا مدن والد سلامني رمضان كريم. ان كوسو دوادا channel ka daawanaysan waa kubciye comedian sidoo kale jila channel iyo waliba Abwan J official. Kuso dhawaada maanta waxaan wadnaa arintu ay ka tagtay branki ay ka tagtay challenge waxa la marayaa wareysi bariyaha sida ogtihiinba waxa soo kordhay cabashada dhankaas iyo coronavirus cabashada dadka bilaadinka ay qabeen maahe dhankaas iyo xawayaamaha taa cabashadooda aad ay u sii badanaysaa waxa ila fadhiyaa wariyaheena oo dhinacaas nagu soo warraba xawayaamaha iyo sidoo kale gudoomiyaha xawayaamaha asagana la fadhiyo kusoo dhawaad Abwan J aan kugu bilaabo adigo waad naasantahay Khalid waa runtiis barnaamijka daan guda galo saaka aroortii hore ayaa keynta hore banaankeeda ka dhacay madfac weyn oo lagu dhuftay qolyaha digiiranta kadib weerar culus markii lagu qaaday kooxda digiiranta oo ku cabatay inay weerarka wacdi dharay ku mareen ay argudan doonaan ayaa wariyaheena oo u hadlayo kooxda digiiranta ayaa wuxuu yiri وعد يا دار بان كمرني حدو غلير ويرك naga dayn waayo inaan sidii aan argudasho u sameeyay duwaan ana ka qalqa qaylin doonaan weeye saas ay ku waday dhinaca kale dameer maanta loo shaqeeyay inuu cudurka coronavirus qatay lagu qabtay duleedka magaalada kadib markay dameerihii kale ee magaalada joogay ka cabtay in laga qabtay ninkaasi dameerkii oo calacalahay wuxuu yiri قال بيك قال بيك waa run wuxuu yidhi haddii laisoo dayn waayo karantiinka lagu hayo waxaan adeegsan doonaa dad badan oo coronavirus qabaan baa magaalada dhinaca kasoo gelin doonaa waa la arki doonaa dowladda iyo shacabkooda ay kici waayaan waxaa sameeyo way caddahay weeye taa ka gudubno dagaal culus oo lagu qaaday qoryaha quraanjada ayaa saaka ka dhacay duleedka magaalada godka weynaa ay ku yaaleen markaas watiirili iyo waxa isqabsadeen bahalkii macaan jecel lahay asay waan weyn bariyaha ka waday meesha ayada waanti kadib macaan jecel ayaa hadlay wuxuu yidhi waxaa weeye codkaas aad maqlaysaan waa afayeenka macaan jecelka uu ka hadlayo dagaal ka dhaxeeya quraanjada iyo watiiriga kadib markay 2 iyo 5 la iskaga dilay dagaalka asaga wuxuu la yiri mar laba macaan quraanjay waa nabadda waan jecel lahay haddii nabad la'aan ay jirto nolol ma jirto ee watiiriga walaalkeen waan la hadalay mar hore waa inuu asaga nabadda ilaaliyaa hadalkaasi wuxuu ahaa hadalkii macaan jecelka walaalkeen isku dubaridkii aan ku noqdo waatahay daawadayaal halka weli nagala socotaan waa kubciye comedians iyo waliba sidoo kale jila channel iyo waliba Abwan J official haddii aad ku cusub tahay channel-yaasha saddexda waan ku sheegay fadlan meesha gududan daar subscribe-ka haddii ay dhib kugu tahay aniga soo yar anaa ku daray aan u kaco dhankaasi iyo afayeenka xawayaamaha okay hadalka sida aad u mahadsan tahay studio xaruntana dhexe ee magaalada dhacdhac TV baba sidoo kale saad ogtiin ba dagaal waxa la soo sheegay miigaayo aad isku wadeegsaday oo ka dhacay haarta ay dhahan foljex korkeeda wala meesha kurta halkaas oo la sheegay in dhulwa iyo harmac isku rifeen halkaas oo la sheegay dhulwa inuu soo neef farfooqay oo harmac ka soo kala dhacay kabtaas oo ku tala dheecayn oo biyaha laga cabay harmac ku soo in meesha biyo ka cabo halkaas oo dagaal xun ka dhacay bal aan wareegno afayeenka xayawaanka ee kurta foljex anigu ma reeyo dhahay inaan neefkaas ama ninku cunayo dhuraaga oo fooqay inaan laakiin wuxuu dhahay hamigeyga anigu waxaan cuno waan haystaa dhiijaanta marood inaan biyaha ka cabo maadaama abaar soo geliso biyihina isku bedeleen ay biyaha loo yaqaan ajida oo yacni kalarkooda ka tagay ama yacni midabkooda ka bedelmay halkaas waxaa soo dhex galay oo markii xafaalta ka dagaalka u dhacay waxaa imaaday wasiirka labiska lagooyo dumarka oo halkaas arrin yar ka soo jeediyay oo la yaab leh wasiirkaas oo la dhaw magaciisa xoor oo la sheegay meesha inuu ku yaalay geed goosay ah oo shinni ay ku abuurtay ogtiiba malab ka dhex baxay meeshaas oo la sheegay nin geli jira intuu shinnidii jabsaday markuu dhahay aad ku xasid meesha ka cunto looxaantiina oo xoor imaaday halkaas oo hal xabo dhuuso ku dhuftay wasiirka xoorka u qaabilsan magaalada Foljex wuxuu aad iyo aad u mahadsantahay halkan nagala socotaan waa Baba TV haddana studio-na dib ugu laabano
واتهاي داود يال انتاسي وحي نوغدن وروحي دلكي دبدي دنكاسي حويامها naga soo gaaray sida u jeedeenba waxa fadhiyay afayeenka xawayaamaha iyo waliba gudoomiyaha xawayaamaha oo markaasi u turjumayeen hadalkooda anaga ma naqaan iyaga yaqaanaan marka waxaan leenahay daawad yaal inta ku kulmi doono warkaan warkiisa xigo waxaan iga tagayaa sidaas nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا هديات كل عصبتها channelك وحاسبتها سبسكرايب باش جوزن قلبان كافرو سيرو تنو حكومة سيرو كوسو جارو وركا وركي سحيو